gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Ciro oo weheliyo afayeenka xisbigaasi Barkhad Batuun ayaa waxa ay maanta kulan la yeesheen qaybaha kala duwan ee saxaafadda Soomaaliland waxaana uu kulankaasi ka dhacay xarunta guud ee xisbiga wadani kulankan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta iyo wariyaasha hay'adaha kala duwan ee saxaafadda ayaa waxa uu ahaa mid lagu gurfeenayo duruufaha warbaahintu ku shaqeyso wada shaqeynta warbaahinta iyo xisbiga iyo waliba hadladii dhawaan xukuumaddu ku sheegtay in ay hayso liiska 30 wariyo oo dawladda Muqdisho ay mushaar siiso ugu horeyn gudoomiyaha ayaa la wadaagay warbaahinta sida uu uga xun yahay eedaha ay dawladdu u jeesay warbaahinta isla markaana waxa uu ku booriyay in ay ilaaliyaan qarannimada iyo sidii Soomaaliland u wanaagsanaan lahayd gudoomiyaha oo ka hadlaya arrimahaasi waxa hadaladiisii kamid ahaa oo xisbigu taageersan yahay madax bannaanida saxaafadda Soomaaliland ee ku qoran dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland madax bannaanidana uu garab taagan yahay inay helaan saxaafaddu madax bannaanideeda waxaan u taageersanahay inay dhaliili karaan xisbiga wadani haddii uu khaladaad sameeyo ama la toosinayo sidoo kale axsaabta qaranka iyo xukuumadda runtii waxaan ka xunnahay habdhaqankii xukuumaddu muujisay muddooyinkii ugu dambeeyay ama xukuumadii kala dambeeyay ee kulmiyay gaar ahaan ay kula kacday saxaafadda madaxa bannaan haddii tacaddi tahay haddii xarig tahay intii hore waa soo dhaafto maanta qaran dumis bay ku eedeysay saxaafaddii berigi hore xisbiga wadani bay reeyin jirtay xukuumaddu iyadoo wax raadi weyday 100 jeer ama waraaqo been samaysay ama joornaal wax ku qortay arrinta eedaasna ay soo jeedisay xukuumaddu saxafiyiinta ama saxaafadda Soomaaliland ee madaxa bannaan runtii aad iyo aad baan uga xunnahay iyadoo wax caddayn soo saarin ama aan soo bandhigin waxaan ognahay duruufta qalafsan ay ku shaqeyso saxaafaddu Soomaaliland saxaafaddu waxay ka soo bilowday stencil la rogo iyo waraaqo A4 maanta halkay marayso way ognahay Jamhuuriyadda halka soo fadhido halka soo bilowday way ognahay saxaafaddu waxa Soomaaliland u keentay magaca ay maanta haysato iyada u keentay waxa kaga duwan tahay Soomaaliya iyada u keentay adduunku inuu ku soo dhiirado ay magac yeelato saxaafadda madaxa bannaan ee Soomaaliland ka mas'uulahay وسيشهد waxay u abaal guday xukuumaddan maanta joogtaa waa ognahay maanta waxaan idinku yeernay inaynu iska wareysano duruufaha qalafsan ee ku shaqeysaan waanu ka xunnahay eedaynta la soo jeediyay waa idinka tacsiideynaa Cabdiraxiin Muul Ismaaciil shabakadda wararka Ilays News magaalada Hargeysa